wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Hirshabeelle Mahad Maxamed Xasan ayaa magaalada Beledweyne ka daafuray tababar ku saabsan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. tababarkan oo socon doona muddo 5 maalmood ayaa waxaa ka qayb galaya saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska, garsoorayaal iyo xeeraryaal ka tirsan maxkamadaha degmooyinka gobolka Hiiraan. daafurka tababarkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ku-xigeenka xeeraryaha guud ee qaranka Cabdicasiis Xaaji Maxamed, xeeraryaha maxkamadda rayidka gobolka Hiiraan Maslax Maxamed Sheekh iyo xubno kale. wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Hirshabeelle Mahad Maxamed Xasan ayaa kula dardaarmay ka qaybgalayaasha tababarkan inay ka faa'iideystaan barnaamijkan ku saabsan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo garsoorayaashiinu maanta qaadanaysaan iyo xeeraryaasha waxa idin saaran waajiba idin saaran waxa idin saaran mas'uuliyad culus idin saaran oo waliba dadka oo dhan aysan hayn mas'uuliyadaha kalena ka khatar badan kana culus badan sababtuna waxay tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soko waxa gacantiina ku jiro cadaaladii ummadan xasiloonideeda iyo badqabkeeda iyo nolosheeda doorka muhiimka ah ka qaadan lahayd ayaa gacantiina ku jirto waxa la idin ka rabaa waan la soconaa muddadii badneed wadankan burbursanaa xaaladda garsoorka iyo cadaaladda wadankan marxalado badan oo adag iska soo maray marxaladaha adag gaar ahaan gobolkan iyo state-kan waxa la rabaa in marxaladii adag ka saartaan oo cidii Ilaahay waafajiyay xilligoodii inay ka saaraan noqotaan casharadan iyo daraasadana ay anfacaan bulshadana aad ugu adeegtaan si Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali idinkaga noqdo bulshada cadaaladda iyo garsoorka u sameeynaysan aad ka dhigtaan mid maartahay Ilaahay ku raali gelisaan aadan dad ama shakhsiyaad ama dad aan ku raali gelina raali gelinta Ilaahay ayaa milyan iska qiimo badan kana weyn in dad bini'aadam la raali geliyo oo waxa aan sax ahayn lagu raali geliyo taas waa idin kala dardaarmayaa badqabka iyo badbaadada ummadan iyo wadankan iyo nolosha bulshada oo maaragtahay meesha ugu fiicneed timaado ayaa gacanta ku haysaan Ilaahay ka sokow inaad mas'uuliyadaas aadan dayacina aadan gaabinaha oo aad maaragtahay rakrooni badan aad sameysaan oo doorkiin hadda la idinka filayo ka badan aad la timaadaan bulshadan gaar ahaan hadda gobolka aan joogno xaaladiisa isaga warramayno innaga gobolka wada joogno isaga warramayno inta meediyaha nagala socotay wadanka nagula sugana uga warramayno naftirkooda waxba kuma saagana marka xaalad adag ayaa la rabaa inaad ku shaqeysaan oo aad ku soo celisaan xaalad caadi ah ku soo celisaan marka maxkamadihii insha Allah inay sida ugu dhaqsaha badan idin howlgalaan oo aad fariisisaan oo aad xirfadiina iyo aqoontiina maaragtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin siiyay aad maaragtay shaqadan ku qabataan oo na soo baxdaan rajaynayna insha Allah Ilaahayna idin ku caabayna Ilaahay baan kaga baryaynaa gudoomiyaha maxkamadda degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Sheekh Maxamed Xasan Cismaan oo ka mid ah xubnaha ka qayb galaya tababarkan ayaa sheegay inay ka faa'iideysan doonaan annagana waxaan rajaynaynaa insha Allah oo filanaynaa oo ku faraxsanahay tababarkaas maanta noo bilaabanayo wax badan in ka faa'iideynaan aaminsan insha Allah afka maaragtay garsoorka gobolka Hiiraan anaga oo maaragtay ku hadlayo intaasaan soo jeedinaynaa ku soo dhawaada magaalada Beledweyne tababarada noocan oo kale ayaa looga gun leeyahay sidii xeeraryaasha iyo garsoorayaasha maxkamadaha faham badan looga siin lahaa xeerarka si bulshada ay ugu adeegaan si cadaalada. Maxamed Cabdi Sanay, Radio Berlula, Beledweyne.